gabadhu si fiican ayay u ogeyd in saaxiibteeda ugu dhow ay awood u leedahay inay xado fikradaha mashruuca iyada oo dhegaysanaysa fikirkeeda. Si kastaba ha ahaatee, haddana way ogolaatay inay kula tartanto. Sida la filayay, saaxiibtii ayaa xaday fikraddii waxayna noqotay qofkii ugu horreeyey ee mashruuca ku soo bandhiga masraxa tartanka. Ardayda iyo macallimiintuba way ammaaneen iyagoo u arkayay inay tahay qof caqli badan oo hibo gaar ah leh. Saaxiibtii aad bay ugu faraxday ammaantaas, xitaa waxay ku jeesteestay gabadhii iyadoo weydiisay sababta ay weli u heli weyday fikrad mashruuc. Waxayse ogeyn inay hore ugu dhacday dabin. Dhowaan ayay saaxiibtii isticmaashay nidaam ay fikiro ku dhegaysato si ay u xaddo jawaabaha imtixaanka kama dambaysta ah iyo mashruuca tartanka ayga. Nasiib wanaag, gabadhu si lama filaan ah ayay u kicisay nidaam kale oo awood u leh inuu wax ka beddelo fikirada. Waxay beddeshay wixii ay saaxiibteedu xadday. Natiijadu waxay noqotay in saaxiibtii ay ku guuldaraysato tartankii, isla markaana ay hesho darajada ugu hooseysa imtixaankii kama dambaysta ahaa. Arrintaas awgeed, dhammaan macallimiinta iyo ardayda jaamacaddu way su'aaleen. Laakiin cidina ma filayn in xilligaas uu soo muuqdo saaxiibka gabadha, boyfriendkeeda. Wuxuu ku eedeeyay gabadha inay ka masayrtay saaxiibteed, isagoo ku andacooday inay iyadu beddeshay dukumentiyada tartanka isla markaana ay jeexday warqaddii jawaabaha imtixaanka. Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu soo bandhigay muuqaal kamarad amni ah, kaas oo muujinayay qof weji daboolan oo u eg gabadha, kuna jeexaya warqadda imtixaanka si qarsoodi ah. Markaas ayay gabadhu garatay in la dabinayo oo lagu eedeynayo xatooyo aqooneed. Saaxiibteedu weligeed waxay haysatay kaarka ugu dambeeya ee ay adeegsan karto. Nasiib wanaag, qaar ka mid ah ardayda taageersan gabadha ayaa ku dooday in qofka muuqaalka ku jira uusan muujin wejigiisa, cid kastana ay noqon karto. Hase yeeshee, saaxiibtii ma aqbalin doodaas. Waxay ku andacootay in 3 sano ee jaamacadda ay gabadhu mar walba xadaysay shaqadeeda, ujeeddadeeduna ahayd inay ka qaado kaalinta koowaad. Gabadhu way aamustay, mana ay garanayn sida ay isu difaaci karto, maxaa yeelay haddii ay sheegto nidaamka dhegaysiga fikirada, cidina ma rumaysan lahayn. Ugu dambayn, gabadhu waxay soo jeedisay in mar kale ay ku tartamaan naqshadaynta koodhka ayga si cad loo ogaado qofka hibada iyo xirfadda dhabta ah leh. Markay taas maqashay, saaxiibtii isla markiiba way argagaxday, sababtoo ah runtii wax koodh ah ma qori karin. Si kastaba ha ahaatee, ardayda iyo macallimiintuba si weyn ayay u taageereen fikradda, macallinkuna xitaa si degdeg ah ayuu u diyaariyey su'aal. Markay su'aasha maqashay, gabadhu isla markiiba waxay maskaxdeeda ka heshay xal koodh, waxayna diyaar u ahayd inay qorto. Markaas ayay saaxiibtii si khasab ah ugu soo dhawaadatay, iyadoo isku dayaysa inay taabato si ay fikradaha uga dhegaysato. Laakiin gabadhu fursad ma siin, maadaama ay ogeyd in marka la taabto fikradeeda la xadi karo. Saaxiibtii iyada oo ceeboobay ayay ku laabatay kumbuyuutarkeeda. Gabadhu waxay u malaysay in guushu markan ay hubaal tahay. Laakiin ilbiriqsiga xiga, saaxiibtii waxay si degdeg ah u qortay xal koodh oo la mid ah kii gabadha, xitaa isla qaabkii. Maadaama ay iyadu hore u qortay, dhammaan macallimiinta iyo ardaydu waxay u aqoonsadeen iyada abuuraha dhabta ah, mar kale ayayna u sacbiyeen. Gabadhu aad bay ula yaabtay. Markay la tashatay nidaamkeedii ayay ogaatay xaqiiqda. Saaxiibteedu waxay hurtooday 10 sano oo cimrigeeda ah si ay u cusboonaysiiso nidaamka, taas oo u ogolaatay inay dhegaysato fikirada iyada oo aan la taaban. Nidaamka gabadha se wuu duugoobay, mana awoodin inuu mar dambe wax ka beddelo fikirada. Si kastaba ha ahaatee, gabadhu weli ma quusan. Waxay maskaxdeeda ka heshay xeelad kale, mid ay si buuxda ugu burburin karto sumcadda saaxiibteed si aan mar dambe cidina ugu yeerin genius.